محمد شيخ إبراهيم كني محمد شيخ إبراهيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. runtii aad baan ugu faraxsanahay waa kulankii sidaan filayo ugu horeeyay ee aan magaalada Muqdisho oo aan dorad imid runtii aan ka soo qayb galooyaan keli dadka waa ula kulmay qaar masaajid waa ka hadlay laakiin hawl qaran oo sidaan umada looga arrimeedii looga hadlayo runtii hadda ay ugu horeysa waan ku faraxsanahay si aad iyo aad inaan maanta magaalada Muqdisho aan walaalahay dad madaxa inaan hor fadhiyo hooyooyin gabdho walaalahaya dadkii deemeediyaha aan kala hadli jiray inaan maanta hor fadhiyo oo waliba aan kula hor fadhiyo dalkayga hooyo marka hore dalka hooyo ilaahay bersamaadkan ugu soo celiyo anigu bersamaadkii baan ka tagay halkan 92 ayaa igu dambeysay laakiin inta qalbigaygu ku jiray dadkii banaanka aan wada aadnay waan ma aragtay arkay jiray halkaas aan uga soo duceyn jiray mar walba marka Allah idin barakeeyo hawshan aad haysaan runtii hawl aad iyo aad u weyn way daa'iman hooyadan ka hadlaa hooyadan aad uga hadlaa iyo ubadkeeda sidaan soo xiri lahaa idinkuna maanta waxaad ka hadlaysaan nafaqa darrada iyo hooyooyinka in aad ku barbaarisaan oo aad seminaaro ugu furtaan aad tustaan sidii ay cunooyinkan faraha badan ee ilaahay in si khayraadkan siday uga dooran lahaayeen waxyaabaha nafaqada iyadana oo ah ubadkeedana oo ah waa arrin aad iyo aad u habboon sidaad ogsoontihiin waxaan ana sidoo kale waday barnaamij runtii kiinoo kala ah ilaahay darteena aan u waday iyo walaalaha aan jecelahay ee Soomaaliyeed wiilashaydii walaalahay barnaamijkaasuna waxaan u bixiyay shaqayso ha shaxaadine runtii noociisu ugu horeeyay magaalada Nairobi ayaan imid runtii muddo awal usbuuc laba usbuuc bil baan joogi jiray laakiin 6 bilood baan gaaray dadkii baan dhalinyaradii Soomaaliyeed ee halka ilaa inta xagga joogto waa intii halkan ka tagtay ayaan dhex galay waxaan arkay dadkii inaanay qalin waxba ku keeni karin dadkii xoogga aanu gelinay aanu lacagaha gelinay waqtiga gelinay 10 sano aynu wax baraynay ubadkeenii markii ay jaamacadihii dhameeyeen xafiis way waayeen shaqo way waayeen noloshoodii way maareyn waayeen waalidkii kaalintoodii way ka soo baxeen laakiin de qadarkii baa sidaa yeelay marka ilaahay in uu jecel yahay ayaan runtii dhalinyarada ku dhiirigeliyay hadday qalin wax ku waayeen bedelkeeda inuu ilaahay siiyay dhalinyarada xoogooda inay maalaan muruqooda inay maalaan caafimaadkoodii dhalinyarnimadooda inay ka faa'iideystaan maxaa yeelay haddii qalin xafiis aad wax ku weyday shaqo dawlo weyday maalin ku taajir weyday waxaadan waayeyn xoogaaga ilaahay baa ku siiyay cid kula haysata malaha meelihii farsamada lagu sameyn jiray oo dhan ee xoogga wax looga soo saaranayay waxaa ka shaqeynaya rag madow ah ama Ethiopian aadan ama Kenyan aadan ama qolo kala ahaato dhalinyaradeenina waa dulsaar annaga dulsaar ugu yihiin dhalinyaro kale dulsaar ku yihiin reeray dulsaar ku yihiin way shaxaatamayaan makhaayadahay fadhiyaan runtii in aan balcisigii dhalinyaradeena in aan soo celiyo waxaan bilaabay hadal kaliya maaha runtii ficil in aan ku daro maxaa yeelay dhalinyarada markaa dhahdid warbirahan la tumayo waa xalaale shaqadan la dhididayo waana cibaade warbiraha hal la tumo oo beeraha hal la qodo oo dhagxanta hal la jebiyo oo alwaaxda hal la qoro geedaha hal marka dhaad waxay ku leen wadaadada annaga bay waxa nafaraayaan iyaga masa wax iyagii ay qabanayeen annaga nafaraayaan marka barnaamijkaas waa fashilmay laakiin keegi waxaan sameeyay aniga ficilkii bilaabay runtii halkaasan sheeknimadii dhigay khamiiskii cadaan dhigay dharkoodii baan xidhay runtii magaalada Nairobi ayaan waxaan ka bilaabay barnaamijka shaqayso ha shaxaadine
كوان بان تجي دركي خميس كعداء ديجا لها كوان له قادنا يعني حدي أنا دوب كي حرن هالكاسان بان قد ديرت قاطي نف أري أنا قراع يو جري يو لفيه جبين يو ميزان يو مركاسان مقالد اللي سوى برحيي ماشي وان كلمة دي كجيري وان كتجي تمجران آذي بهالكي أبرون كي بان حدي أنا هدنا تميه جرايا دتكو أوقادم وين فهمتين الشيخ كينياوي أيا تمجرايا إيك dadka fikradooda ilaahay baa ku dhaariyay kismaayaan imid badii baan galay malay dooni dadkii baan raacay anoo shabaqi tuuraya malaygii soo qabanaya inta kaliya kuma ekaanine gudihii baan galay anoo bahalkii jarjarayo qoloftay ka qaadayo cabirayo beegaya hadlaya waan ka tago goob weyn ayaan tagay beerihii baan dhex galay anigoo yaambadii baan qaatay runtii anoo de tacabka intaan goostay beertii falaya oo maaragtay aad u dhididsan kelmadeydii ka jeediyay meeshii baabuuraha la dhaqayay ayaan tagay sidoo kale garaashkii gaari halkan yaalaan dhaqid ku bilaabay saabuuntii biyihii de waa shaqooyinka maanta furan ee loo baahan yahay waxaan kaloo tagay goomistaan u tagay waliba magaalada Kismaayo goomisto waxaan doortay nin gacmay la yiraahdo gacantii midigta xooga go'an gacantii bidixdu ku shaqeynaya ninka shaqo hoos buu ka bilaabay ilmu leeyahay saddexaas uu leeyahay uu ku biilaa isagoo gacan go'an oo nin oday ah lix shaqaala hadda u shaqeysa eeg shaqooyinka gacmaha siday u qurux badan yihiin oo waxay u baahan yihiin markii baan meeshii anoo aariyeynaayo gaarigii goomistii ah ayaan sidoo kale waxaa markii ugu darneed oo soo wadaa xaafad aad u hooseysa runtii oo la dayacay shacabkaana dayacay oo ay ku nool yihiin dadka biraha tuma ayaan u tagay magaalada Kismaayo mar allaala markaan tagay anagoo laba gaari ah ayaan ka soo baxay gaarigii keligay baan ahaa buulashii yaryara anigu warshad baan yiraahdaaye ayaan tagay warshadii biraha lagu tumayay mar allaala markaan galay baa waxa ii yimid wiilkii meesha ka shaqeynay way yaabeen oo waxay ku murmayaan ninkan Sheekh Kenyaawi baa mise waa walaalkii way u qaadan waayeen inaan maanta warshadoodii dhex taagnahay markaasuu ii yimid wuu islaamay Sheekh Kenyaawi miyaa tahay haaban ku eri wuxuu yiri walaalo hal shay ma ka codsan karaa sheekhow haye haddaan biyo ku keeno ma naga cabaysaa xad ilaa iyo meesha la kala jooga eeg biyo maanta ma naga cabay haddaan ku keeno ilaa waxay gaarsiisan yihiin qalbigooda say u niyad jabeen dadka in aanan biyo ka cabayn markaas waxaan runii nin walaalkay Soomaaliyeed nin muslima Soomaali haddaad gurigeyga imaan lahayd biyo ma iga cabi lahayd adiga haa buu yiri isaanan kaaga cabaynin ii keen xaas gabadhiiba u yeeray biyo la ii soo qasay qabow runtii aad bay u macaanayeen biyihii baan halkii ku cabay waxaan iri galaaskii markaan u dhiibay intaa kaliya kaaga ekaan maayo berri inaan ku imaadan doonayaa oo aan warshadaadan in aan imaado in aan kursigaaga kugula fariisto in aan garabka kuu saaro faaska iyo mindida iyo ambada in aan gelino dabka in aan kululeyno inaan isla garaacno hawsha inaan wada waliba inaanan ku ekaanin inta oo aan dhiirigelinna ku daro hadduu Ilaahay yiraahdo wuxuu yiri ma runtaaba ma sameynaysaa waliba u qaadan laayahay maalinkii dambaan imid anoo dharkii soo bedeshay kursigii baan la fariistay wali waxaan iri anaa buufinaya anaa dabka shidaaya soo ma garan aad ugu farxay xaafadii waxay la ahan weyday in aan maanta warshadoodii kala shaqeynaya aniga kadibna baashi baan aad u buufiyay bahal yaro casriyo waxay keeneen diinamo wixii de baashi sidaan loo aariyeynay malaha hadda way hormareen xogo diinamo kadibna faaskii baan kululeysanay meeshii baan birihi kula garaacay oo runtii aan ku dhiirigeliyay waliba kelmadii aad ka u jeclaadeen shaqadan birtumida ah sancadan farsamadan imika sii baaba'aysa runtii in dib loo soo celiyo waxaana bilaabay shaqadan birtumida waa Allah subhanahu wa ta'ala waa ka u dhahayo waliba iyo barayaa eeg nabigiisii nabi daawud oo nabiyada ugu wanaagsana nabi daawud uu ku leeyahay wa'allamnaahu san'ata labusin lakum waxaan barnay nabi daawud annaga barnuule ilaahay waa shaqo nadiif ah waxaan barnay sida biraha loo sameeyo duruucda loo sameeyo marna uu leeyahay wa'alanna lahu alhadid bir dab majri jirin oo dab bir loo kulay laakiin dhooba looga dhigay sida dhoobado kale birihi baa loo jilciyo uu sameynay marka shaqadan waxaa yiri waa shaqo ilaahay uu idin baray waa shaqo rasuul uga dayanaysaan shaqadan waa shaqo eeg subax bay intay soo kaceen dhididayaan
ma tugsanayaan gacantooda ma hooseyso kadibna waxay siinayaan reerkoodii bay bil xalaal ah ku biilayaan marka dhalinyaradan waxaan ku dhiirigeliyay xamarna waa ku samayn doonaa inta aan joogo insha allahu tacaala waxaan arkaa dhalinyaradii soo wada dhamaysay jaamacadahan ugu yaraan 80 ama 90 jaamacadood ee wadanka ku taala inaanay maanta shaqo haysanin mid walba wuxuu leeyahay jaamacad fulana ka baxay jaamacad fulana ka baxay laakiin waa taagan yihiin marka maxaa loo baahan yahay rasuulkeenana sallallahu alayhi wasallam masaajidka kaliya dadka ugu ma yeeri jirin dhalinyarada bal masaajidka cibaadada kaliya salaadaha loogu talagalay laakiin dhalinyaradu wuxuu ku dhiirigelin jiray hawlahooda adduunyada xataa inay qabsadaan ninkii uu ugu yimid masaajidka oo uu ku arkay dhowr jeer isagoo uu fadhiyo ooynaya akhrinayo quraan tukanaya rukuucaya sujuudaya intuu u yimid baa wuxuu ku yiri war adiga oo masaajidka dhex fadhiye yaa ku biila wuxuu yiri walaalkay ayaa banaanka ka shaqeysto muruq maal oo kaasaan saarnahay wuxuu yiri isagaa kaa cibaado badan kaa fiican ma dhihin isagaa kaa cibaado badan oo ninkan shaqaysanaya muruqiisa maalaya dhididaya ma wuxuu ka qiimi badan yahay ka cibaado badan yahay ninkan quraanka akhrinaya masaajidka fadhiya ooynaye rukuucaya sujuuday kaasuu ka fiican yahay maxaa yeelay ninkii xoog badnaa ee muruqa lahaa active ka ahaa markuu saxaabadii rasuulka soo hormaray mid kamid ah saxaabada yiri maxaa alla ninkan xoogiisa iyo dadaalkiisa Allah haduu fi sabiilillaah ku jiri lahaa annagana saasanahay ninkii xoog la muruq la waxaan leenahay Allah haduu jihaad ku jiri lahaa rasuulka fikirdaas inuu baabi'iyo rabaa wuxuu yiri war ninkan xoogiisa iyo dadaalkiisa haduu ilmo yar wax ugu qabanayo oo ku biilayo fa huwa fi sabiilillaah haddii uu hooyo iyo aabbo waayeel ah uu wax ugu qabanayo xoogan fa huwa fi sabiilillaah hadduu sharafkiisa ku dhowranayo iyo biyaha wajigiisa uu ku ilaashanayo gacantiisa inay sarreyso uu ku doonayana fa huwa fi sabiilillaah marka dhalinyarada waxaan ku gabagabeynayaa halkan life baan kaga jiraa hadduu ilaah yiraahdo wayna iga arkayaan in aanay ka xishoonin shaqooyinka gacmaha Abdullah ibn Mas'ud oo gacantiisii adkaatay caamil buu ahaa muruq maal buu ahaa markay gacmihiisii adkaadeen oo uu salaamay rasuulku wuxuu ku yiri sallam wallahi gacantan waa gacan ilaahay ee rasuulkiisu jecel yihiin waa nin wax falay waa nin wax jibinayo waa nin ma aragtay wax qodaayo waa nin geed gacan rasuul ilaahay marka shaqadan muruqa ah ee aynu qabanayno cibaadana way tahay quudna waynu ka helaynaa ilaahay iyo rasuulkiisana way jecel yihiin marka dhalinyarada halkan waxaan uga baaqayaa in hadday qalin wax ku waayeen qalina ku raadiyana laakiin hadday ku waayaan inaanay gacantooda marnaba hoos u dhicin in ilaahay badil khayr qabo uu siiyay gacmahooda inay maalaan shaqooyinkana hoos inay ka soo bilaabaan ayaan aad iyo aad u jecelahay kuna dhiirigelinaya barnaamijkiinan iyo seminaarkiinan hooyada iyo nafaqada ama nafaqa darrada aad ka hadlaysaan runtii ilaahay waxaan ka baryayaa in uu ka yeelo mid taabagala mid xamar kaliya aanan ku ekaanin laakiin gobolada Soomaaliya oo dhan u gudba inuu ilaahay ka yeelo hooyooyinkana wacyigelinta guri walba runtii in uu gaaro in xataa hadda walaal baan kala hadlayay arrinkaas in hadda kulli waa bilowgu idin yaho wada tashigi baad ku jirtaane in laakiin meediyalka internationalka ah iyo kuwa localka ah ee xamar oo dhan ka wada shaqeeya gobolada Soomaaliya in iyagana ay arintaas idin la wadaagaan maxaa wacay waa runtii meel walba uu gaar ajirkeedana waa leedihiin fadhigan xataa aad uga murgeysaan arrimaha walaalihiin muslimiinta Soomaaliyeed waxaad ogaataan shaqo kaliya inaanay ahayn wadiifo cibaado inay tahay rasuulka dhahaya sallallahu alayhi wasallam qofkii arrimaha muslimiinta aanan ka murgin naga mid ma aha waxa idin keenay halkan rag hadaad tihiin aad xaasaskiina uga soo tagteen oo aad ilmihiina uga soo tagteen hooyooyin hadaad tihiin aad raggiina ilmihiina uga soo tagteen oo aad inta u soo lugayseen runtii waxaad ogaataan mid walba ajirnu ilaahay idin ka siinayo niyadiina Allah idin hagaajiyo aad baan ugu faraxsanahay runtii aad baan mar labaad u salaamayaa reer xamar dadka magaalada jooga aad baan idin salaamaya waan idin la jooga waan ku mahadsantiin sidaad igu martiqaadeen assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh sheekeeyaa ilaahay waadigiisa ilaahay anagu haddana waxaan u yeeraynaa la taliyaha madaxweynaha ee xagga arrimaha amniga Salaad Cali Jeelle ayaa ku soo dhaweynaya
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. هيئة dagaalanka barfaqarada sheeqeena sharafta leh oo aad iyo aad loo dhiirigeliyey runtina muddo dheer aan ka fiirsan jirnay telefishinada caalamiga aad iyo aad aan ugu faraxsannaha magaalada muqdisho inaan asuguna nagala qayb galo oo aan isku baranno haweenka sharafta badan iyo kasoo qayb galayaasha iyo culumaa diinka kale intaba waxaan idinku salaamaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. bacda salaam runtii aqoon-yahanka soomaaliyeed maanta marxaladda soomaaliya ay ku jirto oo soo kabashada ah in dadka danta yar oo fuqarada wax la gaarsiiyo ama barnaamij ku aadan nafaqa darrada hay-ad arrintaas xil iska qaada ee dalka joogto oo aqoon-yahanadii soomaaliyeed oo xodogaalka ahi ay arrintaas mataqaanaa u duubtaan aada iyo aadaan ugu hambalyahaynaa. runtii dowladda soomaaliya waxa loo abuuro waxaa waaye in dadka soomaaliyeed dhibaatada ay ku jiraan ay ka saarto dhinaca walba. dadku ay hay-addaanu isu xil saarta mid ka mid a amba kuwa ugu muhiimsanba marka dadka soomaalida ee bulshada rayidka loo yaqaano waa dadka jaanis u haysta inay hooyooyinka hayso kaamamka barakacayaasha gudaha jooga ee aan heli karin inay wax gaarsiiyaan iyagoo markaas aqoontooda uga faa'iideynaya. muqdisho waxaan isleeyahay dadka kusoo barakacay waxaan isleeyahay waa ka badan yihiin 1,500,000 waa ka badan yihiin dadka halkan ku nool. dadkaasna waxay u baahan yihiin in beerahoodii lagu celiyo, la tabantaabo, la gaarsiiyo. shiiqu midda uu sheegayo oo shaxaadka iska dhaafa shaqayso waxay ka imaanaysaa markii gacan la siiyo, la wacyigeliyo, inay tillaabsan karaan la gaarsiiyo ayaa arrintaas la gaari karaa. maxaa yeelay dadka soomaalida ama islaamka ahi waxa ay ku shaqaystaan waxay ahaaday waajibaad diiniya ayaa la kala lahaa. aabbuhu wuxuu lahaa nafaqada iyo dharka inuu gado. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. marka risqigii iyo marashadii haddii uu aabbihii bixi waayey booskiisaas in lagu gacan siiyo oo laga warhaayo meesha maanta laga yiraa waayo hooyooyinka soomaaliyeed jiritaanka soomaaliya iyagaa u burdhiga meesha laga leeyahay waa markii raggii kaalintiisii guda waaye ayaa hooyadii marka wixii oo dhan isugu tageen. marka in bosishinkaas aabbuhu uu buuxi waaye marka ay dowladu gasho, hay-adu ay gasho, dadka mataqaanaa isxaanka sameeya ay arrintaas ay hoos u dhugtaan. runtii aad iyo aaday muhiim u tahay. waana u hambalyahaynaa hay-adda. gabadaa waxay tiri dowlad maxaad ka sheeganaysiin haddii xabad rootiya iyo koobiya aad dadkiina gaarsii weydeen. marka in xabad rootiya iyo koobiya runtii qof kastoo soomaaliya helo waa waajib qaran oo nasaaran
oo ulul albaabka saaran maxaa yeelay inta wax garata ayay talada u taallaa marka waxaan dhihi lahaa